بسم الله الرحمن الرحيم قضبك كلام شعله waxa weeyaan inaan ka hadlo xalka deegaanku muxuu yahay xalka deegaanka in badanna waan ka soo hadlaynay haddana waan ka hadlaynaa xalka deegaanku wuxuu noqonayaa kow sharciga iyo kala dambeynta in la soo celiyo haykal dawladnimo in la soo celiyo deegaankii maalin walba maalinta ka dambaysa waxaad moodaa nidaam hadda ka hor la dhaxlay baa jira oo Cabdi Maxamuudna uu ku halqabsan jiray oo ahaa la iga dambeyn maayo wadanka maalin walba waxa la sii gelinayaa fawdo iyo sharci darro deegaankii waxa laga sii dhigayaa qabiili nidaamkii dawladda waxa laga dhigayaa wax dad shacab ah gacanta qaar ku hayaan oo si doona loo yeelo waxa la rabaa qofka ka dambeeya inuu markaa ku mashquulo markii dawladda shakhsiyaad gacanta loo galiyo dadkii la sii kala fogeeyo in lagu mashquula la rabaa sida darteed xalku muxuu noqonayaa in isbedel guda ballaaran la raadiyo marka isbedelkan maxaa caqabad ku ah waxa caqabad ku noqon kara Ethiopia waa 120 milyan kow waxa jira kuwa fara badan inaan isku danahayn waa inaynu fahanno marka ugu horeysa nacaybka aynu nacabnahay systemkan laftiisa in dad kale oo jeclaanaya waxaad nacab tahay oo siyaasad ka dhiganaya isla markaana taageeraya waxa adigu aad nacab tahay inuu jiro shalatii beelaftu markay jirtay Cabdi Maxamuud baa intaasoo sano madax dadka ka garaacay oo lagu daawanayay waad cabaadaysay cabaadkaad cabaadaysa dad baa ku raaxaysanayay dad baa laha marka ha loo daayo marka haddana wax isbedelay oo kale ma jiree haddana dad isla Ethiopiana qaar ahaan qoomiyadda Amxaarada ayaa ku farxaya nacaybka aan nacabnahay marka ninkii deegaanka inoo xukumay wuxuu inaga dhaxgalay qoomiyadda Amxaarada marka lambarkow inaynu dhufayska ka saarno ayaa laga maarmaana waxa kale oo caqabad noqon kara habdhaqanka dadka Soomaalida oo fudud oo iska doonaya sifooyinka Ilaahay gaarka u ah qaar kamida kun fayakun in aroorta intuu wax doono iska noqdo taasna waa sifa Ilaahay gaar ah samirkeena ayaan yar waxa loo baahan yahay qofku isbedel baan doonayaa marka tiraahdo hadaf waa inaad hadaf lahaato hadafku ma aha wax lexlexda marka wax isbedbedelana ma aha hadii lagu xidho hadii lagu dhibaateeyo mid walba waa inuu halkii ka sii socdo waxa loo baahan yahay kale marka oo caqabad inagu ah dadkeena le isbedel baan doonaynaa ama systemka nacab 50% kamida nin walba wuxuu ku oran meesha dawladda ma jirto nidaamna ma jiro sidana laguma socon karo waa yahay maxaa xala waxa iska amsnaanaya marka adigii dadaalka wadayna kuma garabgalayo oo kuma la wad qumanta waan ku raaci marka dibku waxa weeyaan habdhaqanka dadka Soomaalida bini'aadmiga waxa lagu yaqaanaa marka uu arrin soo taabto inayna wanaagsanayn inuu go'aan ka qaato marka hadalkiisa ficilkiisa wax walba inuu noqdo mid arrinta ka soo horjeedo lidku laakiin dhinac waxa lagu oran waxay qaraaba leeyahay tol baa leeyahay war tolnimada iyo siyaasaddu waa kala laba ninkan aad leedahay tol baan nahay hadduu waayahay tareen khaldan raacan yahay adan kana qaban karin adna ma la halaagsami waayahay waxay la tahay marka hadda anaga waana la xidhay waa la soo daayay waxaana la xidhay waxayd maalintii in arrimihii dhaqdhaqaaqa waxa warkay in baarlamaanka aan xidhiir la leenahay marka in arrintu inta ka guda balaaranayso waxa loo baahay marka maalmihii hore marka aan shanqar maqlo taxadar baan qaadanay laakiin hadda ma taxadaro shay dawladdu waa la qabtaa hadana waa la soo daayay qaabkii lagu soo daayay waxa mowduuc kale noqonaysa ima kana ka sii sheekeynaa marab laakiin xaq rabbiin bana laga soo daayay waxa loo baahan yahay marka hadda hadii la xiriyo hadii kale waaga waxaan u baxsanaya wuxuu ahaa ma jirin nidaam isku xidhan oo cilmiyeysan oo dagaal gali kara oo nidaamka la si dagaalami karo laakiin hadda hadii la xidho iyo hadii walba waxa jira nidaam isku xidhan aqoonyahan dal iyo dibadba isku xidhan oo inta kabrada aad ka aragtaan baan ahayn inta kabrada aad ka aragtaan waxay difaac u yihiin waa shadow waa protection systemka laftiisa ayaa badankiisu 90% isbedel doonaya systemkan dawliga laftiisa oo ku dhex jirnaa halka eray ee laga yiraahdo xukuumadda isla hadda waan maqli karnaa isla haddana waa la ogaan karaa waxa waa maxay waa rabitaanka waxa loo baahay marka isbedelka noocaasa in la xoojiyo oo loo samro in la sii laban laabo
waqtigaaga inaad geliso sida darteed isbeddelku ma aha one click wax ku iman kara resourcigi baa la haystaa ciidankii baa la haystaa baarlamaanka sida loola dhaqmo waad arkaysaan samir baa loo baahan yahay marka yaan loo arkin dawladdu markay wax xidho ay dhibaato samayso inay guulaysatay war way guul daraysatay waxa ku oranaya all safka garabka laga saaro waa inaad fahanto dawladdu markasta oo tallaabo aan sharci ahayn ay samayso way guul daraysatay waxa la soo afjaray haddaan tusaale idin siiyo nin dambe oo dawladda intuu soo fadhiisto sharci ka hadli karo ku halqabsan kara ma jiro dimuqraadiyad laguma halqabsan karo xuriyatul qowl laguma halqabsan karo sharci baa jira laguma halqabsan karo waayo baarlamaankii baadkiiseen badda suuqa dhexdiisa in lagu garaacay marka maxaa laga soo xidhayba totally nidaamkii dawladnimo iyo tasarrufaadkiiba waa laga soo xidhayba way yaxyaan iminka markay TV-ga soo istaagaan waxay dareemayaan guilty conscious waayo waxay sameeyeen boog yihiin kilibyadii baa yaala baarlamaanka la garaacaya yaala marka sharcigu ku sheegi kara maxay tahay dimuqraadiyaddu ku sheegi maxay tahay xuriyatul qowl baa jira hadda ma laga dhaadhicin karaa away warbaahintii Soomaalida ay halkan joogtay hal nin oo eray sheegi kara ma jiro nin walba waxa la leeyahay shatigaad ku joogto waa kii dawladda Soomaalida waa laga la noqonaya xagu jira waxaasi sadarteed xalku wuxuu noqonayaa in loo guntado wado isbedel oo dhab ah qalbigana la geliyo mid kale waa in meesha laga saaro weliga marka arrin aad doonayso waqtiga lama soo dhaweysto ma garan karno bari saa dambe bil laba saddex waqtu noqon ilaahay baa garan laakiin inaga waxa looga baahan yahay asbaabtii arrimuhu sida kale way bisil yihiin laakiin asbaabtii ayaa leenooga baahan yahay waayo cid inagu aan nacabnahay cadawgeena ayaa u gargaaraya cadawgeena ayaa hoos galaya marka waxa loo baahan yahay isbedel buu dadku u baahan yahay isbedel cilmiyaysan waxaan jeclahay halka inaan ku daro oo caqabad ku noqonayo kale isbedelka dacaayadaha xagga xukuumadda ka imanaya dadkii isbedelka aanu rabnay ayaa la dhexgelinayaa tashuush waxa lagu leeyahay waxa imanaya nidaam bahal ah oo idin cunaya naaba ma imanayo kan laftiisa ayaan diidanahay kana rabnaa inaan bedelno nidaam ka fiican baan rabnaa inaan ku bedelno waxaan rabnaa dhammaan dhibaatooyinkii laga dhaxlay waqtigii hore iyo kanka laga dhaxlay isbedelka la afduubay wadadiisii la qaadsiyaa la rabaa isbedelka la rabo marka waa ka sida darteed dhalinyarta iyo odayaasha lagu leeyahay nidaam bahala imanaya ma imanayo nidaam ka fiican baa imanaya sharciga ku dhaqma imanaya horumarka ummadda nidaam ummadda ka soo dhaxbaxay baa imanaya nidaam ummadda ka soo dhaxbaxay baa imanaya insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inuu yimaado qof aan garanayno dalkan iyo dadkan garanaya nin walba khaanad ugu jiro hebel wuxuu mudan yahay garanaya hebel wuxuu soo qabtay garanaya hebel ka kale wuxuu ha garanaya dadka isku wadaya marka nidaam noocaas aan rabnaa inuu yimaado dadku sida hawlo socdaan mawduucan halkaas aan ku soo gabagabeynaya